mayaasido soo dhawaada walaalayaal mawduuceena inu geli doonaa ma ku jirtaa dawlad doogankii Soomaalida Jabuuti ma ku jirtaa NFD ma ku jirtaa annaga iyo hawiye isku kay daawada hawiye wuxuu yiraahdaa Isaaqlan iyo qabiil dawlad noqon maayo iyo waxaasay la sharimaadaan oo public television iyo meelaha kaga sheekeeyaan waa waxaan saliye raatoon lahayn ma dad baa indhaha la qabanaya walaalayaal gaal kacay yaa isku dilaya gaal kacayo yaa isku dilaya galmudug yaa isku dilaya hiiraan yaa isku dilaya shabeellada hoose yaa dagaalka iyo dhulboobka iyo dhaca iyo kufsiga iyo darxumada ka wada beled weyne yaa isku dilaya jawhar yaa isku dilaya ma dadka indhaha la qabanaya waxa indha arkayaan beelka gooyaan waxa ummadda qarxinaya ee dadka dilaya ee dadka dhacaya ee ummadda boobaya waa hawiye weeyaan haddaan been sheegayo iqabta walaalayaal shabeellada hoose yaa dhibaatada ka wada ummad dhanbay drones iyo diyaaradaan cidi wadan u adeegsadeen ma hawiya maanta dawladnimo sheeganaya oo dadkii cunay oo 25 sano lafaha iyo dhiiga kulaalaya ma hawiya maxay ka hadlayaan daahir calaso maxay ka hadlayaan bal arab waxa aan ka hadlayo mawduucan ka hadlaya ka hadlaan maxay sheegayaan taariikh male Soomaali weyn bay ku daba gabadaan dadnimo ma yaqaanaan dhaqan ma yaqaanaan maxay sheegayaan waayahay ma hawiya dawladda buu leeyahay maanta Soomaaliya waxa maanta dhibaatada ka wada waa hawiye amisom waxa keenay waa iyaga Jalaal Caydi Abdullaahi Yuusuf Ali Mahdi Abdi Qaasim markay kursi ku heshiin waayeen ay amisom iyo qaramada midoobay iyo igad dhulkoodii keenay Soomaaliya dawladda kama jirto waxa dawladda sheegtaa waa hawiye xaqiiqdan maanta idin sheegay anigu cid ma caayo laakiin xaqiiqdan ka hadlaya waxa dawladnimada sheegtaa waa hawiye weey waxa dawladnimada sheegtaa waa amisom weey waxa dawladnimada sheegtaa waa igad weey waxa dawladnimada sheegtaa waa qaramada midoobay iyo reer galbeedka weeyaan beelihii kale runtaan idin sheegaya walaalo soo dhawaada Isaaqlan iyo qabiillaan bay ka bixi waayeen Soomaha waxa cunsuriyada iyo qabiilka iyo dhaca iyo boobka iyo mataqaana isku dirka iyo munaafaqada meel walba la taagan ee magacii Soomaaliyeed dilay ee ummadda Soomaaliyeed isku diraya ee ummadda Soomaaliyeed kala dilaya ee waxaan ku uri waxaan soconayn ka dhaadhicinaya waa hawiye weeyaan beelaha koonfurta dega ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa walow weyn qabiil baa la yiraahdaa ha lagu ixtiraamo yaan la caayo jareer weyne qabiil baa la yiraahdaa ha lagu ixtiraamo yaan la caayo waa dadka 25 ka laga dhiga weey dadka banaadiriga la yiraahdo waa dad sharaf leh waa dadkii xamar lahaa waa dadkii guryahoogii iyo hablahoodiiba kufsadeen ay dhaceen hawiye yaan lagu dadkaana la soo dhaweeyay banaadiriga la yiraahdo dadka dir la yiraahdo ee biyama la yiraahdo shabeellada hoose dega waa dadka la dulmiyay weey ee dhulkooda la baabiyay ee dadkoodii hablahoodii la kufsanayo ee la dhacayo la dilayo waxa sameynayaan waa hawiye xaqiiqda meesha ka jirtaan idin sheegaya maanta yaana idin ku harowsan Isaaqlan iyo maxaylaan hawiyaha qurunka ah wuxuu wadaan maanta idin ka sheekeynaya hadii uu leeyahay sidaas aanu dawlad ku nahay oo la faahiyo dhiigaan kulaalan dawlad ku nahay oo muranka iyo mataqaana tala xumada iyo tawfiiq xumadaas aanu dawlad ku nahay iyaga u tahay laakiin xaqiiqda idin sheegaya labaan maanta isbarbar dhigaya dadka banaadiriga la yiraahdo 4.5 ku tilmaameen qabiilo badan oo iyaga ka tira badan 25 bay ku tilmaameen nus bay ka dhigeen dambigu bay ka galeen waxay ka galeen maxaa dulmi bay ku sameeyeen dhulkoodii bay dhaceen dadkoodii bay boobeen waxa weey waxa sameynaya waa hawiye hadaba ninka daahir calaso la yiraahdo baan idin sheegaya ninka daahir calaso la yiraahdo waa argagixiso hawiye waa argagixiso qarax waloo dhacaya waxa ay ku difaacaan waxa ay ku difaacaan in aan la ogaanin in iyagu wax dilayaan Saada Cali Warsame waxa dilay habir gidir baa dishay Saada Cali Warsame waxay u dooday shabeellada hoose hees bay u sameysay habir gidir baa qolo waxay u sameeyeen Mooryaane u sameeyeen lacag bay siiyeen Saada Cali Warsame iyaga dilay si aan loo fahmin bay Isaaq iyo Dahabshiil ay ku shaambadeen waliba daahir calaso bal u fiirsada walaalayaal
mar waloo wax dhacayaan mar kasta oo wax dhacayaan amba qarax dhaco amba dhibaato dhacdo markaaba waxa soo booda dameer calasow iyo maamulka muqdisho xamar ee hawiye waxaanay ku sheegaan qabiilo kale amba cid kale ayay ku shaambadeeyaan qaraxa dhacaya maxaa keenay waxay isleeyihiin qeydin cun calooshiisu ka shaki qabaayo waxa la ogaan doonaa in idinku aad ka dambaysaan waxaan walaalayaal nimanka dadka dhacaya nimanka dhulboobka wada ee dayniila dameeraha kaga yimid miyaa maanta innaga inagu sheegaya qabiil nimanka kursi ku heshiin la ee doorasho qabsan kari la ee reer galbeedku u taliyo ee igad u taliso ee ciidankoodu amisom yahay miyaa dowladnimo inoogu faani kara ilaahay baan kugu dhaashay waxaan idiin sheegayaa walaalayaal nimanka amisom la idhaahdo waxa loo keenay sida ay sheegayaan inay argagixisada la dagaalamaan argagixisada lama dagaalamaan meesha raaxay u joogaan haddii ay argagixiso la dagaalamayaan furintay geli lahaayeen al-shabaab bay la dagaalami lahaayeen meel bay qabsadaan meeshaa markay qabsadaanna dib bay uga baxaan al-shabaab baa haddana qabsata waa filin kartoon ay wadaan meesha raaxa loo imid taariikh dhabaan idinka sheekaynayaa walaalayaale nin askariga oo ka mid ah askarta Jabuuti oo aanu saaxiib ahaan jirnay ayaanu suuraysanay waxaan ku yiri war bal niman yahow way tan waa al-shabaab dawaarga gixiso waxun bay qarxisaaye bal naftiina haddaad ku weydaan ka waran ninkaasi wuxuu yiri haddaanu dagaalanaba aanu ku weynaba uri naftayada ninkaasi wuxuu sheegay waa askari Jabuutiyaana oo ka mid ah askarta Soomaaliya la geeyay ninkaasi wuxuu sheegay inuu haramuus meesha la yiraahdo Jabuuti fooq weyn uu ka dhisanayo oo 3 dabaqa intuu fooqu dhamaanayana ay iska raaxaysan doonaan hablahana ay ku raaxaysan doonaan buu sheegay ninkaasi waa xaqiiq dhaba weyn nimanka xaaladda ku nool miyaa dawladnimo ku faani kara ilaahay baa kugu dhaarshay ee loo soo shaqo tagay walaalayaal ka carab la yiraahdo baan idinka sheekeynayaa ninka carab la yiraahdo waa nus weey kuwa 25ka laga dhigay buu ku jiraa xamar baa lagu kustaday xabsi waa naagood nin raga maaha waxa daahir caliso ku soo shibuu ku hadlaa ka waxba isku mashquulin kaasi wuxuu ku qanacsan yahay 25ka laga dhigay buu ku qanacsan yahay nus in laga dhigay hadda aayadihii ilaahay bay beeniyeen nin raga in nus laga dhigo bal ka waran ilaahay baan kugu dhaasheeyay oo waliba ku qanacsan hawiye hadduu maanta dawlad sheeganayo Soomaali buu noogu soo gabadaa wuxuu doonayaa inuu Soomaali cadow inoogu dhigo doonayaa Soomaali inuu cadow inoogu dhigo war Soomaali inaga cadow inagu maaha daarood caytamaya miyaad aragteen ma jeerteen caytamaya miyaad aragteen ilaahay baa idinku dhaashay digir iyo milifle caytamaya digir iyo milifle waa dadka ugu badan ee koonfurta Soomaaliya dega maxay madaxweyne u noqon waayeen ay madaxweyne u noqon waayeen sabab in la isweydiiyo wanaagsan banaadirgu iyaga xamar leh maxay madaxweyne u noqon waayeen ilaahay baa kugu dhaashay maxaa ku dhaay raxan weyn maxay madaxweyne u noqon weeyday Soomaaliland hadaan ahay anigu in la maamulona waan jecelahay inaan wax maamulona waan jecelahay inaan wada tashano isku tanaasulana waan jecelahay daahir riyaala 10 sano xukuumaya aniga oo ku qanacsanaa oo doortay ma garatay maantana waxaan jecelahay inuu Cali Khaliif Galeedu madaxweyne noqdo waan jecelahay wallahi oo bilaahi oo tallaahi anigu marnaba ma diidani anagu reebna haashim baanu nahayo haddaad leedahay isaaq waaba ganacsiga uga fiican yahay dawladda aniga waxaan jecelahay anigu Sheekh Isxaaq hadaan ahay ana iskugu daran ana isqunsuriyadaya ana isqabiileeya laakiin waxaan jecelahay dadka kale ee ila degani inay maamulaan baan jecelahay hawiye muxuu ku doodayaa kursigu wali ku dhagan yahay waa meesha kama taga waxba kuma tare waliba aqli xumadiisa isagoo la faahiyo dhiiga kulaalaya oo dadkiisii ku dul dhamaadeen oo daroonis iyo amisom adeegsanaya oo hablihii la kufsanayo oo mataqaana nolosha ku nool buu ku qanacsan yahay inuu madaxweyne yahay walaalayaal waxay indhaarkayaan beelka gooyaan haddaan anigu qaldanahay qabto haddaan been sheegayana qabto daahir caliso muxuu ku hadlayaa bal hawiye isagoo Soomaali ku gaban
oon cidna ku daba faylin Soomaali weyn maxil gaar ah ka saaran ma mas'uul gaar uu ka yahay waxa ku duugan miyada hawiye taariikh male cidna iskama celin karayo marka danta ku kalifisay inuu magaca Soomaaliyeed ku dawarsado oo ku tuugsado waliba magacii Soomaaliyeedna intay dhulka la dhaceen bay bahdileen walaalayaal meel walba tuugsi iyo dawaro ay la taagan yihiin 25 ka sano dadka noocaas ah miyaa midnimada Soomaaliyeed ma ka hadli kara Ilaahay baan ku dhaashay walaalayaal annagu haddaanu isaaqnahay tijaar baanu leenahay waanu isku tanaasulnaa waanu isdhagaysanaa qorigii aan ku 989 u dhiibay hawiye ayay wali sitaan meeyaga la hadli karaya 19 baan anigu warta nabadda qaatay oon qalin qaatay ardadii jaamacadaha ka soo baxday awdal berbera hargeysa sool sanaag iyo cayn saylac maanta PhD bay wada diyaariyeen oo dalka iyaga xukumaya kuwii 25 sano dagaalamayeen isbaaray haystaano islaanta salada sidata ee suuqa ka soo adeegsanaysa ayay inta yar suuqa ka soo adeegsanaysa ka dhacayaan ma dadkaas Soomaaliland wax ka sheegi kara oo isaaq wax ka sheegi kara haddaba walaalayaal waxaan idin sheegayaa dadka qabyaaladda wada ee ummadda isku diraya reer Sheekh Isxaaq baa inta sii kala qaybiyeen bay yiraahdeen dadka isku diraya Hargeysay dagaano waa habar awal bay yiraahdeen bal Ilaahay baa kugu dhaarshay heerkaas bal Hargeysay maraya ka waran qurunkooda iyo qabyaaladooda iyo isku dirkooda beelaha Soomaaliland daga waxaan u sheegayaa hawiye hiil ma galo hawiye hadduu hiil galo Cali Khaliif Galeyd bay soo dhaweyn lahaayeen hal sano gudahood bay kaga xayoobeen sharafta oo ay ku casileen haddii hawiye hiil galo hawiye hadduu hiil galo Abdi Ismaaciil Samatar bay soo dhaweyn lahaayeen oo ay ku yiraahdeen isku rogobay idin ma qaado xageed haysatay holka halkeed haysatay horta hawiye hadduu hiil galo dir iyo reer Sheekh Isxaaq uu soo dhaweyn lahaa oo maanta cid ugu dhawaa oo cadawgiisa ka difaaci lahaa iyagana cadawgu ka dhigtay walaalayaal waxaan idin sheegayaa taariikh dhabaan idinka sheekeynaya reer Soomaaliland dalka Sacuudi Carabiya la yiraahdo wuxuu la tartamayaa quwadaha adduunka gacanka cadmeed iyo badda cas wuxuu doonayaa inuu saameyn xooggan ku yeesho 20 shirkadood baa Soomaaliland ka soo qayb galay inay dekada berbera ay maalgashi ku sameystaan Soomaaliland muddo 3 sano ah bay waday daraasadda xukuumadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa uu ogaaday in dawladda Imaaraadku ay inoo tahay faa'iidada ugu weyn ee aynu ka helayno dhaqaale iyo maalgashi caalamiya dawladda Imaaraadku waa dawlad sharaa'iga shirkadaha caalamka waa suuqii adduunka haddii dalkeena maalgashi ku sameysata dalkeenu wuxuu ka helayaa faa'iidadii ugu ballaadhnayd sidaa darteed baa waxay Soomaaliland heshiiska ula gashay in shirkadaha caalamka iyo suuqyada caalamku ay wadankeena ku soo ururaan dawladda Sacuudiga way ka xumaatay iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud nacaska xum ee meesha kama taga waxba kuma taray lafaha iyo dhiiga kulaalaya 25 sano ee xinka iyo xaasidnimada iyo xaqiraada iyo ficiltanka la fadhiya xamar iyagoo dadkiisii baqtiyeen ayay soo cabaysay xoolihii baa la joojiyay xoolihii Sacuudiga u dhoofiyay baa la joojiyay sababta loo joojiyayna waxa weeye inaan Soomaaliland aan helin maalgashi caalamiya waxa la inaga dagaalamayaa waa maalgashiga caalamiga ah berbera waxa weeye waa baabal Afrika weeye laba baab adduunka ka jira waa baabul madab waa baabka Aasiya iyo baabka Afrika iyo baabka Aasiya waxa haysta Djibouti iyo berbera waliba berberi ay uga dhowdahay waa marinbiyood badda cas waxa ku kulma maraakiibka caalamka iskaga goosho oo dhan ayaa ku kulmaya halkaa haday berberi maalgashi caalamiya hesho oo dekedeena la maalgashayadana waxay noqonaysaa dekadaha caalamka adduunka ugu weyn ee ugu caansan ee ugu dhaqaalaha badan ee kulmiya maraakiibta caalamka oo dhan sidaa darteed waxa habeen iyo maalin loo taagan yahay walaalayaal in la kala kiciyo maalgashiga caalamiga ah iyadoo laynoo soo adeegsanayo dawladda taagta daran ee hawiye ee mataqaana lafaha iyo dhiiga kulaalaysa madaxdeena waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin walaalayaal in ay mar walba dalkeena maalgashi caalamiga ku sameeyaan inaguna hadnu shacabka Soomaaliland nahay qabiil qoob baa laynoo kala ootayo haddii ceel la qodayo haddii wada la sameynayo haddii xafiis la dhisayaba waxaanu leenahay badii baa la dhacay maxaa kulaaye kana la sameeyay iyo kan sharaf madaxdeena sharafta leh ee habeen iyo maalin u taagana
waxay ku dadaalaysaa oo ay mar walba waji ka bax kala kulantaa dad xaasidiin ah sidii dalkeena maalgashi caalami lagu sameyn lahaa walaalayaal dhalinyarta Soomaaliland waxaan u sheegayaa war Soomaaliland war dhalinyarta Soomaaliland war ismu ogidin war haddii ceel la qodayo qabiil baad ku dagaalamaysaa war cadawgiina ugu baday war dalkeena iyo madaxdeena aanu garab istaagno war dadka rasiqaaga goynaya ficil iyo ciil baa igu hisiinay ilmaadaya wallaahi billaahi tallah markan eego sida maanta cadawgu noogu yihiin war dad badan oo nagu hareersan baa cadawgeena ficil baa igu hisiinaya waxa la yiri gudinay ma goyseena daabkayga kugu jira mar waloo aqoonsi caalami yimaado mar waloo maalgashi caalami yimaado suxufiyiintooda inoo soo diraan falanqayn iyo dood bay galaan shacabkeena la kiciyaa barbaraa la iibsaday madaar baa la iibsaday waxaasay ayayna dhaxaan inaguna isma ogine madaxdeena mar walba waji gabaxa kala kulmaysa ee dadka xaasidiinta cadawgii mar walba ay la tartamayaan ay doonayaan in maalgashigeena caalamiga ah iyo dawladnimadeena ay baabiyaan ayaynu inaguna cadow ka dhiganaa oo shirkadii timaadaba haday shidaal qodayso iyo hadii ay qodaysaba ma taqaanaa ceel ay qodaysaba qabiil baa hadlaya ilaahay baan kugu dhaarshay maxaad cadow kaga arsan kartaa markaa walaalayaal waxaan idin sheegayaa dhalinyarta Soomaaliland waxaan u sheegayaa cadawgeenu waa hawiye cadawgeenu waa xamar weeyaa beelaha kale Soomaaliyeed godob uma qabno baraadirigu waa dad sharaf leh tigriya milifle waa dad sharaf leh walaalayaal dadka daaroodka leeyahay waynu istilnaa inkastoo Soomaali weyn ku gabadaan haddana godobtooda waynu ognahay laakiin cadawgeena koobaad waxa weeye waa hawiye weeyaan walaalayaal dhalinyarta Soomaaliland waxaan u sheegayaa ilaahay baan kugu dhaarshay ninka argagixiso kugu sheegay ee beesha caalamka ka dhaadhicinaya ee doonaya in caalamka laga tirtiro muxuu teela kuula haday ilaahay baan kugu dhaarshay walaalayaal marka maalgashi caalami yimaado si ficil aynu ku soo dhaweeyno madaxdeena sharafta aynu garab istaagno xukuumadeena iyo dawladeena aynu garab istaagno cadawgeena badan saxaafadda madaxa banaana kala barta maalin alla maalintaas shirkad caalami dalkeena timaado iyadoo silic lagu keenay iyadoo xaqiraad iyo xaasidnimo iyo xin iyo mataqaanaa ficiltan ay nala garab taagan yihiin ayaa markaa dood la qabtaa caruur iyo ciroole dabeedna sidii loo kala kicin lahaa baa falowgeed la galaa isma oga Ismaaciil Dubad iyo xaaska Oomani markaasaa suldaan hebel hadlaya oo qabiil hebel hadlaya oo la kala kicinaya oo la oranaya ceel baalkan laga qodaya badii baa la iibsaday madaarkii baa la iibsaday waa ayaan daradayna haysta weeyaan walaalayaal waxaan doonayaa maanta inaan xaqiiqda ka hadlo waxaan doonayaa maanta dhalinyarta Soomaaliland anigu xisbina kama rabo magac ma taqaanaa kama rabo xisbi kalena magac kama rabo cid kalena magac kama rabo meel aan la ogeyn baan ku noolahay ana internetkayga ku shubta kharash baa iga galay laakiin dhalinyartayda baaba'aysa iyo dalkayga la doonayo in la halaago ayaan ka dhiidiyay oo u kacay waxaan doonayaa inaan istaageerno walaalayaal beelaha Soomaaliland degay walaalaha war gacmaha inuu isqabsano war Soomaaliya waa loo tashaday Soomaaliya waxay noqotay qabiil la doonayo in Soomaali lagu baabiyo oo hawiye ah oo reer galbeedka iyo gaaladu ay ku soo adeegsanayaan ummadda Soomaaliyeed oo maalin walba qabiil baa la rabaa in al-shabaab lagu shaambadeeyo dabeedna la doono in lagu baabiyo ummadda Soomaaliyeed war walaalayaal dhalinyarta Soomaaliland waxaan u sheegayaa maalgashi kasta oo inoo imaada si ficil aynu ku soo dhaweeyno waayo nin kasta oo hawiye oo xaasida amba koonfur ka soo jeeda waxa uu doonayaa in la kala kiciyo hadaynu maalgashi helno hadaynu dhaqaale helno hadaynu dawlad noqono iyagu waxay noqonayaan dad aan jirin oo waxba wax alla waxay yihiin jirin waxay aaminsan yihiin Soomaaliland haday dawlad noqoto dad badan oo aaminsan haday Soomaaliland dawlad noqoto in iyagu badbaadayaan baa jira laakiin fikirkani ma aha fikirkoodii waa fikirkii reer galbeedku ma doonayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya wax u hagaagaan waxa la inoo soo adeegsadaa waxa weeye waa hawiye iyo maamulka xamar degan walaalayaal nimanka xaasidnimo xoolihii u joojiyay nimanka doonaya maalgashiga caalamiga inay la dagaalamaan nimanka habeen iyo maalinba u taagan qarankeena inay halakeeyaan nimanka argagixisada inagu tilmaamay
علمية عامة ومدن أو مسلم ولا له هذا ما حيكون هرين حفيز ولو قرمده مذوبي لا ده هيبا بساس يرفيان باتشوجا أنت أنا وحلاقة داعينا يا إني سومالي لان أرجع حسابتها ولا لا يا إننا وحينكم مشغول لي حسب قرن حسب قرن ما تقارنا حسب كل مية عدي ودني بينكم مشغول لي جوده بينكم مشغول لي اسمه أوجين dadkeenii wada dhashay reer Sheekh Isxaaq amba Samaroonaha amba dhul bahanta amba Warsangali amba Ciisaha iyagii baa isbilaabaya qabiil kasta oo Soomaaliland ka tirsan amba Samaroonaha ha ahaado amba Ciisaha ha ahaado amba dhul bahanta ha ahaado amba Warsangali ha ahaado qabiil jir jufa loo kala ootayo jufa walba sultaan yar baa meel ku ootay walaalaya waxaanu doonayaa inuu ku shaqeysto oo uu dhaqaale ku helo qabiilkiisina waa baqtiyaya isagiina guri iyo nolol buu ku nool yahay carruurtiisina ku raaxaysanayaan walaalayaal gacmaha aynu isqabsano walaalayaal cadowgeenu waa badan yahay meeshan qorshe weyn baa jira waa qorshe weyn oo qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo dawlad deegaanka iyo NFD ba ka sareysa reer galbeedku waxay doonayaan inay nabaabiyaan iyagoo qabiil adeegsanaya qabiilada hawiye waliba kuwa banaadiriga la yiraahdo daga xamar banaadir daga hawiyaha banaadir daga iyadoo la adeegsanayo amba ma taqaana qolo kamida Puntland iyadoo la adeegsanayo ayaa la doonayaa in ummadda Soomaaliyeed lagu baabiyo walaalayaal dhalinyarta Somaliland waxa weeye walaalayaal ilaahay baan kugu dhaarshaye sida markaad eegto dhalinyarteenu ay yihiin iyo cadawgeenu uga hareeraysan iyo kii Soomaaliga ku sheeganayo uduunka ka jaraya waxa weeye waa ayaan walaalayaal waxaan idin sheegaya nimanka caytamaya nimanka dhulkoodii amisom iyo qurunka keenay nimanka cunsuriyada iyo qabiilka iyo duliga isku dilaya waxa ku dhex jira waxa weeye waa reer galbeedkii sidii ay rabeen baanay la heleen waxaan idin sheegayaa Soomaaliland hadii la doonayo in la badbaadiyo shacbi dhalinyar xukuumad iyo ma taqaana aruuriya waayeelba in gacmaha la isqabsado arintu ma yara anigu wax badan baan ogahay wax badan baan ogahay waan idin salaamayaa walaalayaal waan shaqo tagayaa ku mashquuli mayno wada hadalka Soomaaliya hal la joojiyo fadalka waxa loo keenay waxa idin Soomaaliland lagu baabiyo wada hadalka waxa idin Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku diro oo dabeedna amisom la geeyo